waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daahsoon oo aynu guud ahaanba ku eegayno ciidankii Maraykanka ee Suuriya ka baxay oo Ciraaqna loo diiday xaaladooduna haatan tahay cirkaa dheer dhulkaa dheer ku soo dhawaada barnaamijka. militariga dalka Ciraaq ayaa warbixin ay salaasada maanta soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamadii Maraykanka ee ka soo baxay dalka Ciraaq oo u soo gudbay xuduudeedu aanay haysanin wax sharciyada ama ogolaansho ah oo u saamaxaya inay ku nagaadaan ciidda Ciraaq. shayga kaliya ee lagu heshiiyay Maraykankuna uu ahaa inay Ciraaq u noqoto dariiq ay uga sii gudbaan meeshii kale ee ay saldhigyo ka helayaan. waana xilli ay ciidamada Maraykanka ee Suuriya ka soo baxay ay haatan u muuqdaan kuwo ay cirka iyo dhulkuba diideen, sidaasoo aanay weliba nabadgelyana ku haysan oo ay aagaga ay ku sugan yihiin ka dhow yihiin dablaydii ka hadhay dhaqdhaqaaqii Daacish. kurdiyiinta reer Ciraaq ee ay dhex joogaanna ugu cadhaysan yihiin ballanfurkii ay ku sameeyeen kurdiyiinta Suuriya. koonfurta Ciraaqna aanay ku degdegaynin u soo gudubkeeda maadaama ay goobiyaalayaan in ka badan 120,000 oo maleeshiyaad Shiica oo hubaysan oo Iiraan ka amar qaata. intaasoo dhanna ay ka sii daran ay gantaalaha Iiraan iyo diyaaradahooda daroontaahi saacaday doonaan burburin karaan ciidamada dhulka ee Maraykanka ee aan haysan waxay kor ugu fiiqaan gantaalaha baalasha leh ee noocoodu yahay cruise ee aanay raadarada cadowgu qaban karin ee ay Iiraan u isticmaashay burburinta xarumihii shidaalka Sacuudiga. kasoo bixitaanka ciidamada Maraykanka ee Suuriya ayaa lagu macneeyay kasoo bixitaankii ciidan ee ugu ballaarnaa muddo sanada, waana ciidamada haatan ku sugan gobolka Kurdistaan ee dalka Ciraaq kuwaas oo ku jira xaalad cirkaa dheer dhulkaa dheera oo ay Washington 10,000 oo mayl u jirto. Sacuudigii lahaa dalkayga Keenana uu haatan ka gowsadeegayo oo ka cadhooday hubkii cuslaa ee kurdiyiinta Suuriya ee ay Maraykanku saxiixeen in lagu wareejiyo ciidamada Turkiga, taasoo Maraykankuna ay ku doorbideen baqdin ay ka qabeen in hubkaasi gacanta u galo dowladaha Ruushka iyo Iiraan oo ciidamadoodii soo galeen gobolkii ay kurdiyiinta Suuriya gacanta ku hayeen. waana xilli ay soo baxayaan warar tilmaamaya in kadib ololo ballaaran oo ay lubigii Yuhuudda Maraykanku ku qaadeen Trump uu haatan ka fikirayo inuu Suuriya u daayo 200 oo askari oo shaar looga dhigayo la socodka xaaladda dib u noolaanshaha dowladda Islaamiga ahayd. laakiin dad badan oo ka mid ah bulshada gobolka Bariga Dhexe ay u arkaan ciidan dusha kala soconaya ilaalinta dowladda Israa'iil ee xuduudaha aaggaasi ay ku yaalaan wadamada cadowga u ah Israa'iil sida Suuriya, Iiraan iyo waliba Ciraaq.